بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku guda jirnaa wali doobista casharada xisaabta booga fasalka 6aad cutubka koowaad iyo labaad aan ka soo baxnay kii saddexaad aan bilaabayna insha Allah waxaan ku baranaynaa abyoone marka si aan u fahanno abyoone horta maxaa la yiraahdaa abyoonuhu waxaan ku fahmi karnaa number line kan ama tirada xariiqda dusheeda ku qoran waxa centerka galayo ama qaybta dhexe 0 marka tira kasto 0 ka weyn waxa loo yaqaanaa abyoone togan tira kasto 0 ka yarna waxa loo yaqaanaa abyoone taban marka sumad waxa jirto ay qaadanayaan wixii 0 ka yar waxa la siiyaa sumada minuska sidoo kale ama sumada kala goynta wixii 0 ka weyn waxa la siiyaa sumada yani isku geynta la siiyaa magac ahaan waxa loo kala yaqaanaa abyoone togan waxa la yiraahdaa abyoone togan iyo sidoo kale abyoone taban magac ahaan kaas ay qaataan marka 0 wixii ka weyn tira kasto 0 ka weyn waxay qaadanaysaa +1 +2 +3 ilaa ma dhamaato way soconaysaa wixii 0 ka yar ayagana sidoo kale waxa la siiyaa calaamada minuska waxaan la siin doonaa calaamada kala goynta oo asna waxa la yiraahdaa abyoone taban la yiraahdaa marka si aad u fahanto abyoonayaasha ururkooda hadii aan muujino urur ahaan waxa loo qori karaa waxay noqonayaan -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ilaa ma dhamaata ah urur noocaan ah hadii aad aragto waxa loo yaqaanaa abyoonayaal la sidoo kale waxaan ognahay ururka tirooyinka tirsiimo tirooyinka wax ku tirsano hadii aad qorayso urur ahaan loo qoro waxa laga bilaabaa number 1 2 3 ilaa ma dhamaata ah ururkan waxa la dhahaa tirooyinka tirsiima loo yaqaanaa oo waxba lagu tirsadaa mar walbo urur waxa jira asna la yiraahdo tirooyinka idil marka tirooyinka tirsiimada waxa ku soo kordhi doona kaliya 0 asaga wuxuu ka bilowdaa 0 1 2 3 ilaa ma dhamaata ah yani oo xad aan lahayn marka abyoonaha waxa ogaanaysaa waa tirooyin yani all waa dhamaan tirooyinka tirsiimo oo lagu daray 0 iyo sidoo kale tirooyin markaas 0 ka yar oo loo yaqaano tirooyinka tirsiimo kuwooda negative ka wata wixii 0 markaa ka yar marka si kooban hadaan u sheegno abyoone waxa la dhahaa tira kasta oo 0 ka weyn 0 ka yar 0 na ay la socoto marka numberkana lagu muujiyaa abyoonahana laba nooc u kala baxaa abyoone taban oo calaamada minuska la siiyo iyo sidoo kale wuxuu u kala baxaa abyoone togan oo calaamada pluska qaata marka la isku darayo dhootii inta badan waxa ku shaqeyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo numberadana ku shaqeyn doonaa number line ka ku shaqeyn doonaa ama xariiqda dusheeda ku dul shaqeyn doonaa laba step ahaan ugu shaqeynaa marna waxa ugu shaqeynaa xariiqda dusheeda marna waxa ugu shaqeynaa qaab markaasi caadi ah hadda maxaa ka fahmaysaa videogan meeqa nooc u kala baxaa abyoone wuxuu u kala baxaa laba nooc abyoone taban iyo abyoone togan abyoone maxaa la yiraahdaa abyoone waa tirooyin oo negative ah oo yani tirooyinka 0 ka yar iyo 0 ka weyn waxa la yiraahdaa abyoone loo yaqaanaa marka inta badan ardaydu waxay isku qaldaan tirooyinka tirsiimo iyo tirooyinka idil ee isku qaldaan tirooyinka tirsiimo waxay ka bilowdaan 1 tirooyinka idilna waxa ku soo kordhaya 0 hadii marka ahaan -4 insha Allah tusaalaha koowaad waxaan leeyahay waxaad sheegtaa wadarta +4 ama +4 iyo sidoo kale +3 waxa ay tahay waan ognahay oo waxay noqonaysaa 4 lagu daray 3 waan sheegi karnaa waa 7 laakiin waxaan ku muujinaynaa xariiqda numberkan ku muujin doonaa xariiqdaas ku muujin doonaa xariiqda saan ogeen waxay u samaysantaa qaabkaas dhaxdan waxay noqonaysaa 0 ay noqonaysaa intana waa 1 2 3 4 5 6 7 dhagaan waxa iskaga darsataa -1 -2 -3 -4 ilaa ma dhamaata dhagaana sidoo kale ilaa ma dhamaata marka hore waxaana la siiyay +4 waxaan ka bilaabaynaa 0 gaan ka kaceynaa xariiq ahaan waxaan ka kaceynaa marka hore 0 gaan ka kaceynaa ilaa waxaan tagaynaa 4 intaan ku wada waa haysanaa waa 1 2 3 4 +4 ka haysana waa ka waxaan ku dareynaa marka 3 aan ku dareynaa waxaan dhaqaaqaynaa 3 step ama 3 god aan dhaqaaqaynaa 1 2 3 hadii 3 aan ku darno waxay noqonaysaa marka halkaas ka kacay waxay tagaysaa
toddobaday tagaysaa marka inta waa plus 4 xariiqada barta ay ka kacayso waa plus 4 intana sidoo kale waa plus 3 wadar ahaan marka la isku darana waxay noqonayaan 7 waxaan ognahay haddii aan ka shaqeyno hadda aan dhahno plus 4 oo lagu daray plus 3 aan dhahno waxay noqonaysaa plus 7 ay noqonaysaa ma plus waa la qariyaa laakiin maadaama hadda anaga bilow aan nahay waan muujinaynaa si aan u fahmo marka xariiqda waxaa ka kacaysa 0 ka kac tirada lagu siiyay ku tag marka tirada lagu siiyay aad ku tagto sidoo kale tirada aad ku daraysa intay tahay in la mid ah dhaqaaq haddii laba god ay tahay tirada laba lagu daray ay tahay laba number dhaqaaq haddii 3 number ay tahay 3 dhaqaaq haddii 4 ay tahay 4 dhaqaaq kadib numberka aad ku istaagtid ee hoos ah waa wadarta isku geynta labada tiro sidaas ay noqonaysaa qaybtan kale hadaan fiirino hoos waxaana la siiyay plus 3 iyo plus 5 wadada hadda oo kala marayna ayadana number line-kii waa kan waa haysanaa tusaale ahaan number line-kii waa kan waa haysanaa numberka waxaa kaloo samayn kartaa korna waa lagu muujin karaa xariiqada numberkeeda kor waa lagu muujin karaa 0ga wixii dhanka midig ka xiga waa positive ma plus wixii dhanka bidix ka xigana waxay noqonayaan negative ay noqonayaan ilaa ma dhamaato soo marka inta waxaan iskaga darsanaynaa -1, -2, -3 ilaa ayana sidoo kale ma dhamaato marka waxaana lahay plus 3 waxaan ka kaceynaa 0 waan ka kaceynaa ilaa waxaan ku tagaynaa marka hore 3 gan ku tagaynaa intaan waxaa waaye plus 3 aynu noqonay maxaa ku darna la dhahay plus 5 5 godaan dhaqaaqaynaa marka 1 2 3 4 5 godkaasaan ku geynaynaa waa kan oo intan waxaan soo dhaqaaqnay markaa plus 5 aan soo dhaqaaqnay wadartana waa numberka ay ku taagan tahay oo waxay noqonaysaa markaasi 8 ay noqonay waxaa loola jeedaa macnaheedu waxaa waaye plus 3 haddii lagu daro plus 5 lagu daro waxaa soo baxayso plus 8 soo baxayso waa inuu simple sida fudud aan ugu shaqeyn karnaa qaabka ah numberka marka xariiqda ku dul sameynaysid mar walba waxaa qasaba numberka hore 0 ka kac numberka ku tag marka numberka ku tagto tirada aad ku darayso inta god ay tahay in la mid ah baad kacaysaa godka aad ku istaagtid wuxuu noqonaa wadarta korkeedana waxaa ku qoraysaa inta step aad soo kacday hadda 4 5 6 7 8 madaxa ka tiri 1 2 3 4 5 waa sooma plus 5 ay noqonayaan meeshaas wadartiina waa tana oo haddii marka 3 aan ku darno 5 aan ku darno waxay noqonaysaa بسم الله الرحمن الرحيم هذا waxaa ka soo baxnay qaabka la iskugu daro abiyone togan haddana waxaan baranaynaa insha Allah qaabka la iskugu biiriyo ama la iskugu daro abiyone taban labadan tiro saa u jeedaan waxay wataan minus ay wataan calaamadda ama sumada kala goynta wataan marka qaabka la iskugu biiriyo ama qaabka la iskugu daro aan baranaynaa anagu ku muujin doono xariiqda numberka midda hore markaan ka shaqeynayno tusaale ahaan maadaama hadda waxa aan wada haysan ay yihiin abiyone taban ay yihiin waxaan u badinaynaa dhanka bidixa u badinaynaa xariiqdeena dhankaas u badinaynaa inta oo kale waxaan ka dhiganaynaa marka 0 maadaama wax oo togan meeshan aysan ku jirin inta kale waxaan ka dhiganaynaa 1 inta kale waxaan ka dhiganaynaa 2 intaan waxaan leenahay ma dhamaato so dhankaan u weyneynayna marka waxaan haysanaa -2 ilaa -3 aan haysanaa marka waan fogeynaynaa ilaa -6 iska geysanaynaa -1 aan leenahay -2 -3 -4 -5 -6 ilaa ma dhamaato so marka hore waxaa la isiiyay -2 ama -2 la isiiyay so marka 0 ka soo kaca waxaa imaanaya numberka la isiiyay imaan doona tirada la isiiyay oo given-ka ah 0 markaan ka soo kaco tiradaas dul imaana waa ka jooga tirada markaan joogo waxaa ku dartaa la dhahay oo ku beerisaa -3 marka 3 godaan soo dhaqaaqi doona anoo ka bilaabi doono godka ku dhagan 1 2 3 waxay imaanaysaa marka 5 dul imaan doontaa filartada markaa soo qaadid halkaas toos u imaanaya marka intaan waxay tahay -2 intaan waxay noqonaya marka -3 haddii la isku biiriyana waxay noqonayaan total -5 ay noqonayaan soo marka hore tirada lagu siiyay 0 ka soo kac tirada lagu siiyay soo abaar kadib inta kale ee ku beeri lagu dhahay godadahaasi madaxa ka tirso 1 2 3 godkay ku istaagto wuxuu ku noqonaa wadartii noqonayo korkeedana waxaa ku qoraysaa intii aad soo dhaqaaqday soo marka kan isla fahanaa fila mid ka xigan ku sii fahmi doonaa waa imisa wadarta abiyoonayaasha -3 iyo -8 markaan
waa imisa wadarta abiyoonayaasha -3 iyo -8 xariiq dheer aan samaysanayna markaan xariiq dheer aan samaysan doonaa oo way badanayaan tirooyinka inta kale waxaan ku aadinaynaa marka 0 iskaga aadisanaynaa ama bartaan oo kale 0 ku aadisanaynaa inta kale waxaan ka qiyaas qaadanaynaa inay tahay 1 inta kale waxaan ka qiyaas qaadanaynaa 2 inta soo hartan inay tahay ma dhamaato waxad aysan lahayn marka ilaa waxaan keenaynaa markaan 12 ilaa 13 aan keeni doonaa insha Allah waxaan leenahay -1 -2 3 4 5 minusada gadaalan ka saaran doonaa 6 7 8 9 10 11 12 ilaa ma dhamaataan leenahay marka hore waxaana la siiyey marka -3 ana la siiyey waxaan ka soo kici doonaa 0 aan ka soo kaceynaa waxaan imaanaynaa -3 astaan ka dhiganaynaa oo tiradina la siiyey ah 0 aan ka soo kacana waxaan imaanay -3 inta waxaan u naqaanaa marka -3 inay tahay waxaa la yiri waxaad ku biirisaan -8 ku biiriya -8 marka ku biirinayna marka -3 ga hadda aan ku taaganahay numberka ku xigaan ka bilaabeena dhanka bidix waxaan ka bilaabeena 4 aan ka bilaabeena waxaan tirsanaynaa 8 1 2 3 4 5 6 7 8 bartaan ku tagay marka oo marka 3 ka soo qaadno waxay ku imaanaysaa 11 ama 11 ay ku imaanay marka 3 ka soo kacana waxay ku imaanaysaa 11 ay ku imaanay soo marka intaan waxay noqonaysaa -3 ilaa 11 inta u dhaxayso waa -8 u dhaxayso hadii marka -3 iyo -8 la isku biiriyana waxay noqonayaan -1 iyo 10 isku biirayaan macnaha tusaalahan adigoo meel 3000 lagaaga lahaa waxa soo qaadatay 8000 marka 8 iyo 3 hore lagu lahaa iyo 8 hadda qaadatay la isku biiriyo waxay noqonayaan marka resto waxa lagu qoraa Soomaa 11 lagu yeelana marka qaabkan waxay qaabka la isku daro tirooyinka abiyoonaha 10 yani tirada markay wadato 2 minus markay wadato marka waxa ogaanaysaa xeerka calaamadaha laba tiro noocan hadda aragto oo calaamadan wato waa la isku biiriyo way isku darsamayaan laba tiro calaamada isla wato hadda aragtidna way isku biirayaan calaamadahana mid kamid ah la qaataa laba tiro oo calaamadan wato hadda aragto way kala go'ayaan cagsigeedana sidoo kale ayagana way kala go'ayaan xagga isku dhufashada ma kala joogan laakiin way kala duwan yihiin labadan hadday isku dhacaan waxay noqonaysaa plus labadan haddii ay isku dhacaan waxay noqonayaan plus labadan hadday isku dhacaan waxay noqonaysaa minus labadan hadday isku dhacaan waxay noqonaysaa minus ay noqonayaan laakiin isku darista markii la joogo labadan way isku darsamayaan labadan way isku darsamayaan laakiin calaamadda mid kamid ah la qaadanaa labadan way kala go'ayaan labadan way kala go'ayaan numberka weyn calaamadda wata ala tixgelinaa markaa marka hore waxaana la siiyey +9 lagu daray -4 markaan ka shaqeynayno waxaan leenahay is equal waxaan soo qaadanayna marka hore +9 iska soo qaado balaskan oo banaanka yaalo iyo minuskan gudaha yaala isku dhacaayo waxay noqonaysaa marka -4 marka tiradan balas ay wadataa tiradan waxay wadataa minus way kala go'ayaan waa tii hadda aan ku sheegay hadda aragto laba tiro oo balas wato way isku darsamayaan laba tiro oo minus watana way isku biirayaan calaamadda minuskana waa la qaadanaa laba tiro oo balas iyo minus kala watana waxa soo baxaayo minus soo baxaayo waxay ku xiran tahay numberka weyn calaamaddu watay ku xiran tahay tan haddii sidoo kale tira minus ay wadato tira kalena balas ay wadato oo la isku beeriyo laba mid ay noqonayaan ayagana sidoo kale way kala go'ayaan tirooyinka laakiin tirada weyn calaamadda ay wadataa la qaadana dhammaan marka inta ku fahmi doona insha Allah hadda marka fiiriso meeshan +9 aan soo qaadano haddaan isku dhufano balas iyo minus da isku dhufano waxa ka soo baxayo minus ka soo baxayo oo balas lagu dhufto minus waxay noqonaysaa minus ay noqonaysaa laakiin xagga isku dhufashada hadaan u tixgelino minus lagu dhufto minus waxay noqonaysaa balas lagu dhufto minusna waa minus lagu dhuftay balasna waxay noqonaysaa ayadana sidoo kale minus ay noqonaysaa soo marka hadii labadan isku dhufano waa minus tirooyinka laakiin way kala go'ayaan tirada weyn calaamadda wadataan la qaadana 9 laga jaray 4 aan leenahay waa 5 tirada weyn maxay wadataa marka balas ay wadataa balastaasan qaadanayna midda labaad markaan ka shaqeynayno sida hadda oo kale waa ayadana sidoo kale +3 iska soo qaada marka hore plus iyo minus isku dhufo waa -8 ay noqonay tirooyinka hadaba way kala go'ayaan waxay wataan calaamado kala duwan haday kala go'aan labadan tiro waxa soo baxayso 5 soo baxayso
5 ka laakiin maxaa la siin doonaa calaamadda minus ka la siin doonaa waayo tirada weyna waxay wadataa minus haddii aan ka shaqeynayo haddaan ka shaqeynayo plus 6 soo qaad marka hore plus minus iyo plus isku dhufo waa minus 4 tirooyinkan way kala go'ayaan sababtoo ah calaamada kala duwan ay wataan tirada weyn calaamaday wataan qaadanayna oo markaasi ah pluska 2 gana waxaan siinaynaa plus aan siinaynaa sidoo kale 9 pluska waa u qarsoon yahay 6 na minuskeeda waa muuqdaa way kala go'ayaan tirada weyna plus wadato marka waxa soo baxayo 3 soo baxayso nadiif ah sidoo kale haddii aan ka shaqeyno 7 laga jaray 5 waxay noqonaysaa ayadana 2 noqonaysaa pluskana waa u qarsoon yahay sababtoo ah 7da waxay wadataa plus qaybtan kale way ka duwan tahay qaybtan markaan ka shaqeynayno tusaale ahaan waxaana la siiyay d waxaana la siiyay -12 plus -10 plus 15 ana la siiyay marka hore -12 sideeda uga fur -12 sideeda bracketka uga fur waxa sameynay marka waxa isku dhacayo pluskan iyo minuskan waxay noqonaysaa -10 kadib waxaan leenahay plus 15 marka meeshaas joogno labadan tiro oo minuska wato isku biirayaan tirooyinku isku biirayaan labada minusna midaan ka qaadanaynaa 12 haddaan ku biirino waa 22 kadib lagu darayaan leenahay 5 iyo 10 lagu daray hadaa tiraahdo 5 iyo 10 maxaa ka soo baxaya labadan tiro way kala go'ayaan sababtoo ah calaamada kala duwan ay wataan haddii la kala jaro waxaa soo baxaya 7 waxaa soo baxaysa 7 7dan calaamadee la siinaa tirada weyn calaamadee wadato haddii laba weyn minus ay wadataa minus aan siinaynaa sidoo kale qaybtan haddaan ka shaqeynayno -4 bracketka sideed uga fur plus ku dhufo waa plus 9 minus 5 waxaa isku biiraya marka hore -4 iyo -5 isku biirayo waxay noqonaysaa -9 plus 9 marka labadan tiro way isla eg yihiin oo waa -9 iyo +9 way isla baxayaan waxa meesha ka soo haraya marka 0 ah ka soo hari doona oo sababtoo isku isla bixi doonaan oo markaasi way kala go'ayaan marka cutubka saddexaad bartaasaan kusoo gabagabeyn doonaa exaambuladii waa wada khulaaseynay halkaasaan kusoo gabagabeynayna insha allah cutubka afraad bilaabeynaa thank you very much soo koobano intaanu ciwaano usa sameyna isku geen kala gooyin isku sumad kala sumad oo leeyahay okay